السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kasto aad naga daawareysaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyada aan idinku talagalnay. barnaamijkan waa kii habeenimo talaada oo ay Arbaca soo galayso taariikhduna ay ku beegan tahay 27 May sanadka 2025. haddaba barnaamijkeena habeenimo waxaynu ku soo qaadan doonaa macluumaad iyo warar aanu isleenahay waa kuwii ugu waaweynaa ee dhacay tan iyo intaynu kala maqdeen. barnaamijkeygii galabnimo iyo kii subaxnimo qodobo aad u xiiso badan ayaa ku jira. inta daawatay way daawatay, intaan daawana way daawan doonaan. qodobada barnaamijka caawa aan idinku hayo waxaa ka mid ah sargaal sare oo lagu dilay goor dhaweyd magaalada Gaza, ciidamada Israa'iil oo sheegay isagoo si la yaab leh loo dilay. faahfaahin baan idin hayaa. waxaa soo kale aan idin hayaa wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil oo aflabadii qayliyay hubka naga cishanina haddii kale nimankii inta soo laabtaan nagta naga gurayaan u leeyahay. waxaa laga baqayaa wiilasha Al-Yaasiinka wata ee Gaza ku jira ayay Israa'iil weli ka baqaysaa. haddaba sheega iyadana cajiiba oo arrinta ku saabsan barnaamijkan idinkugu faahfaahin doona. waxaa soo kale barnaamijkan idinkugu hayaa abaanduulaha ciidanka Israa'iil oo lagu dhagan yahay yaa ku dhagan xaaska Netanyahu ayaa haysata. awoodda ay ku haysato ninkaa sida ay ugu dhagan tahay xilka in looga qaado ay rabto iyo waxa ay ku haysato ayaan iyana faahfaahin doonaa. qodobada ayaynu barnaamijkeena caawa ku faahfaahinaynaa. waxaa naga xasuusa inaynu idin la socodsiinayno in berito ay tahay maalinkii ugu horeeyay bisha Carafo ama Dilxija, iyadoo maalinta Jimcaha ah ee 6 bisha ku beegan Juun ay tahay maalinta Ciidul Adha. maalinta 5 ay tahayna Carafo waayo, waa maalinka xajka la taagan yahay. الحج عرفة أي رسولك صلى الله عليه وسلم. marka halkaas iyaduna wararkii ugu dambeeyay weeyaan. haddaba intaan ku jirno warar cusub haday soo koraan waa idin la socodsiin doonaa. Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay. ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. xawaaladan waa online. internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn stationka tareenka Baker Street ee bartamaha magaalada London. halkaa waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daaweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka, kuwa carruurta, kuwa haweenka iyo cudurrada guud. dhaqaatiirta halkaa ka howlgashay howlwadanaduba waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan. kulanti wanaagsan khiyaaray meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena habeenimo. haddaba waa habeenimo talaada oo Arbaca soo galayso. barnaamijkeena waxaynu ku bilaabaynaa xaaladda magaalada Gaza. ciidanka Israa'iil waxay sheegeen galabta qorax dhici in sargaal sare oo ciidanka hogaaminaya ama saraakiisha ciidanka hogaaminaysa ka mid ah in xabad lala helay, nagta laga dhigay. haye muxuu sameynayay? halow yar buu qaatay, meel geeso u baxay iyadoo xabadda ku taalala hal meeshaas ku rafanaya. taliyihii afka labadii qaylinaya war waa igu dhacday waray qaaday qababac ku hay. haddaba marka aridatu soo goordhow ayay warbixin soo saareen ciidanka Israa'iil. waxay leeyihiin ciidanka Israa'iil waxay sheegeen inuu dhaawacmay sargaal iyadoo dhaawaciisuna uu yahay mid halis ah, wuxuuna ku dhaawacmay waqooyiga magaalada Gaza. ciidanka Israa'iil waxay sheegeen in askariga sargaalka ah uu ku dhaawacmay wuxuuna ka tirsanaa guutada injineerada. waxaana la sheegay dhaawaciisu inuu halis yahay. waxaana la sheegay inuu ku dhaawacmay dagaalka ka socda dhinaca waqooyi ee marinka Gaza. joornaalka Israa'iil Hayom ayaa wuxuu sheegay in sargaalkan la sheegay in ay ku dhacday rasaas la sheegay in meel kore laga soo tuuray oo markaa muqaawamadu ay meel kore ka soo toogteen ninka. meel kore inta u fuuleen ayay nagti ka saareen. ninkii iska dawaaba taliyihii
eriyada dagaalka ka socda dhanaa lagu leeyahay meesha ta halow ku hadlayay ciidan oo kale amrayay markaasay inta la fiirsadeen ayay bahasha la heleen aaliyin qodobkaa halkaasaa kaga gudbaynaa weli waxaynu ku jirnaa wararkii gaza iyo arrimeeda wasiirka arrimaha dibadda israa'iil ayaa warbaahinta la hadlay ilaa hadda warbaahinta kommentiyada laga qorayo iyo sida ninkaa loo dhaleecaynayo waa la yaaba wuxuu leeyahay war yurubey waa noo hanjabaysaan waxaad leedihiin israa'iil aan hubka ka jaraynaa kanaan ka jaraynaa war hubka haddaa naga jartaan nimankii talaabiib noogu imaanaynu leeyahay nagtee naga saarayn midday nugu dhigaan waa la yaabaa war nimanka hubkaa naga jaranin maxaa maraykan keliya meequu sidaa hubkay u baahan yihiin bambooyinka waxa dhan haddana nimankan waxay leeyahin hubka aawadaan iyo waxa aawadaan iyo shirarkan iyo waxbaa idinka jiran ha naga jaranin haddaan naga jartaan kuwa maraykanka keliya wax nooma tarayaane nimanku nagtee naga saaraya leeyahy waxaa ma dhihi jiray fulay ula badan ma maqli jirta marka nimankan meel walba hubay ka keenayaan haddaba markaan idinku tusoo ninka hadalkiisa lagu baadsanayo ninkan waxaa la yidhahdaa horta magaciisa saacir wuxuu sheegay haddii xayiraad huba nala saaruu yidhi israa'iil way burburaysaa kulaa wasiirka arrimaha dibadda israa'iil ninka la yidhaahdo gedcoon saacir waxau sheegay in markaa haddii ay guulaystaan uu yidhi wararka socda dowladaha iyo siyaasiyiinta ay ku doonayaan in xayiraad dhinaca hubkaa lagu saaro israa'iil natiijadu waxay noqon doontaa kulaha israa'iil inay burburto oo ay mar labaad la gubo oo maaragtay sidii hitler uu yeelo camal la yeelo kulaha war ninka see wax ka yiinaale ba ninka hub la-aan baa hays waxa bambo iyo hub loo raray uu Trump markuu yimid kaliya loo raray wixii oo markii hore adduunka dhan siiyeen aaw ninkan xagee aadeen markaas waxaa lagu leeyahay nimankuna cabsida nafta ka qaad war hubka haddaan naga jartaan waxaa naloo celinaa nin kale waa maxraqadii sidii foornadana loogu gubay waagii Hitler ayaa inta naloo yimaada nala gubaa ku leeyahay markaas anigaas marka waxaa leeyahay fulaynimadu halkaasay nimankaa ka maraysay ku leeyahay nimankaa caadi maa haweeneyda Netanyahu uu qabo ayaa waxay noqotaa lagu leeyahay go'aamada waaweyn ee dawladda wax ka gashaa xisbiga Likud ee talada haya ee Netanyahu hogaamiyo xubno ka tirsan iyo qaar ka tirsan golaha wasiirada ayay inta la kulantay waxay ku hor caayaysaa abaanduulaha ciidanka Israa'iil ka waram ninka hadda dhow la magacaabo waa Izmir mid kale leeyahay abaanduulaha ciidanka Israa'iil ayay hortooda ku caynaysaa iyaga kadib saxaafadda u sheegay waxay leeyahay gabadhii uu qabay ninkii odaga ahaa ninkii abaanduulihii ciidanka ugu sareeyay waa ninka ugu sareeyay darajaan ciidanka ayay halkaa ku aflagaadeynaysaa haddaba marka aan tuso warbixin la yaab leh oo sheekada laga qoray telefishinka la yiraahdo 12 ee Israa'iiliyiintu ay leeyihiin wuxuu leeyahay Sara Netanyahu naagta la leeyahay waxay weerar ku qaaday Zamir oo ah abaanduulaha ciidanka waxayna sheegtay inaysan iyadu raalli ka ahayn ninkan xilka loo magacaabay iyo waxa kan iyo raalli inaysan ka ahayn waxay soo kale sheegtay Sara inay markaa iyadoo la hadlaysay xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo xubno ka tirsan xisbiga Likud in markaa aysan raalli ka ahayn ninkan inuu xilka sii haysto abaanduulaha ciidanka ah ninka la yiraahdo Eyal Zamir haddaba waxay ku haysataa ay leedahay ninkan wuxuu sameeyay leedahay qalad uu sameeyay qaladka marka muxuu yahay wuxuu yiri wada hadallada aynu isku dayno si aan fursad u siino si loo soo daayo dadka nala ka haysto yiri ka warwaas see u dhihi karaa ay ku leedahay ninka abaanduulaha ciidamada dhan iyo waxa maamulayay ayaa prime ministerka naagtiisa waxay ku kor caayaysaa waliba qolkeedii ma aha meel kale ma aha wasiirra hortood iyo xildhibaano xisbiga Likud ku jira hortooda ee ku caynay xalada ninkaas xilna loogu dhiibaa ka waram war ninka xilka laga qaaday leen waa la yaabay marka nimankan laga yaabay waay ninka Netanyahu iyo caaskiisa way ku baashaaleen yahuudi kale ku baashaaleen hatta iska dhaaf carabtii qadar xayisiisa kadib waxaan galaynaa sheeko cajiib oo ku saabsan Iran oo qabatay oo xabsiga dhigtay hogaamiye diineed weyn oo Iran ah haddaba Iran maxay ka tiri arrinkan cilaaqadoodu ma dhibaato u keeni doontaa
qaybta dambaan ku faahfaahinayna. sharikadda Imara Luxury Homes waa sharikad guryaha casriga ka dhista magaalada Nairobi ee dalka Kenya. haddana waxa ay ka wadaa dhismaha loo yaqaano The View xaafadda Backlands jidka 6th Avenue City Park. dhismaha The View waxa uu leeyahay adeeg kasta oo asaasi ah, waxaana uu ka kooban yahay sida 2 qol, 3 qol, 4 qol iyo weliba qolkii shaqaalaha iyo 4 qol oo 2 dabaq oo isdul saaran. waa nooca loo yaqaano duplex. haddaba imika waxa socda barnaamijka sharikadu ay u bixisay 90 days promotional kaasoo la magac baxay hoyga waa muhiime hanti yeelo. kala xidhiir telefoonada ka baro markaska daarutaqwa qur-aanka kariimka higaada culumta shareecada luqadda carabiga iyo tarbiyadda awlaada hab casri ah online wixii faahfaahina kala xidhiid nambarada shaashada kaaga muuqda. kulanti wanaagsan mar kale asxaabay meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena habeennimo qaybihii ugu dambeysay barnaamijka. haddaba qaybtan waxaynu kusoo qaadanaynaa Sacuudi Arabiya ayaa xabsiga dhigtay hogaamiye diineed weyn oo reer Iiraan oo Shiica ah. waliba hogaamiye kaliya ma ahayna waxa leeyahay nin xer leh oo telefishinka dawladda muxaadarooyin iyo wax ka akhriyo oo barnaamijka ka sii daayo ah. ninkan marka waxaa lagu qabtay fiidiyoyo duubaya wuxuu dhigayaa social media isagoo aflagaadeynaya dawladda iyo boqortooyada Sacuudiga. saanay wax yeelayaan fiir masaajidka masaana loogu talagalay makana loogu talagalay inta soo raadiyeen inta qabteen ku tuureen. asaga wuxuu islaa kuma xiri karaano hadda cilaaqadii iyo xiriirkii Iiraan iyo Sacuudiga soo hagaagay marka xajkii ugu horeeyay oo dad badan oo Iiraaniyiin ay yimaadaan oo diyaarada Sacuudiga ay soo qaadaan iyo waaye nimankii marka xabsiga lagu tuuray. dawladda Iiraan marka waray soo saartay. haddaba marka aan idin tuso wararkii ugu waaweynaa ee sheekadan laga qoray. haddaba dawladda Iiraan ayaa ka warbixisay xariga ay xirtay boqortooyada nin diimeed Iiraani ah. Iiraan marka waxay tiri annagu marnaba ma aqbalayno in la kharibo cilaaqaadka ama xiriirka walaaltinimo ee darisnimo ee gaarka ay naga dhaxeeya Sacuudiga. waxayna si kulul u cambaaraysay Iiraan waxa kuwa isku dayaya inay dhibaateeyaan midnimada muslimiinta. haddaba marka waxaa soo kale maanta talaadaha la sheegay in Riyaad ay qabatay ama Sacuudiga uu qabtay hogaamiye diimeed lagu magacaabo Ghulam Rida Qasmiyan kaasoo la sheegay inuu barnaamijyo ka sameeyo kanaalka xukuumadda Iiraan. waxaana lagu qabsaday ninkan fiidiyoyo la sheegay inuu ku ihaanaysanayay mamlakada ama boqortooyada taasoo uu ku baahinayay baraha bulshada. ninkii xogaa waa laga daba qaylinaas lahaa wasiirka arrimaha dibadda hadlay Iiraan Abbas Araaqji wuxuu yiri dhageysta annaga dawladda Sacuudiga cilaaqadeena darisnimadeena ma hadlayn kartaan. ninkii meel taga qalad ka sameeyo waa la xiraya. فيديو وانت اسكسو دوبتدada wax ka sheegaysa markaas aan ka daba imaanayna xabsiga hala dhigay Iiraaniyiinta digi xabsiga lagu tuuray isaga wuxuu islaa laguma taaba kare waa lagu tuuray inkastoo hogaamiye diimeed waa marka xajku u yimid la leeyahay marka hawliga xajkuna insha Allah way bilaaban doonaan mar dhow barnaamijkeygii habeenimo anaga intaan marka la kulmayno asxaabay nabadgelyo.